ورايا تيفي ورايا تيفي ورايا تيفي ورايا تيفي ورايا 24 xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida waxa ay siiyeen xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Soomaaliya Dr. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa codka kalsoonida waxa ay u qaadeen xukuumadda waxaana cod aqlabiyad leh ay ku ogolaadeen inay shaqeyso xukuumadda uu dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wariyahana nooga soo warrama magaalada Muqdisho Maxamed Maxamuud ayaa warbixinta warka inoo soo diray mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod kalsooni leh waxay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxa soo xaadiray 220 xildhibaan sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha Jawaari ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu ka codsaday inuu xildhibaanada baarlamaanka u soo jeediyo qorshe ay la imaanayso xukuumadda uu soo dhisay waxaana ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid uu inuu qorshaha ka hor akhriyo xildhibaanada oo ogmaday wasiirkiisa cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cinte gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha Marweyn sanadka bilowga ah ee 2015 waa sanad ay hor yaalaan howlo aad muhiim u ah ugu saameyn ku leh mustaqbalka dalka gaar ahaan xagga xasiloonida dowlad wanaagga dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka waa sanad waxqabad kaga fadhiyo qalabgelinta hiigsiga 2016 iyo howlaha kale ee hamiyadda koowaad ku leh dowladda waa sanad ay tahay inaan ku hegno dalkeena wadada horumarka cadaaladda iyo dimuqraadiyadda marka laga reebo hiigsiga 2016 sanadka 2015 waxaa kaloo hor yaala howlo culus oo u baahan in wax laga qabto sida xoreynta dhulka kooban ee weli ku haray gacanta nabadiidka dhamaystirka dhisidda maamul goboleedyada ku-meelgaarka ah ee harsan baahinta adeega bulshada ee hadda bilow ah welina aan gaarin gobolada dalka oo dhan gaarsiinta cadaaladda iyo garsoorka heerkii laga rabay horumarinta barnaamijka dhaqaalaha iyo shaqo abuurka gaarsiinta dowlad wanaagga iyo tayada hay-adaha dowladda heer sare sidaa awgeed xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanayaa ama aan ka codsanayaa in golaha wasiirada cusub la siiyo codka kalsoonida si howlahaas aan u dardargelino muddada yar ee ka hartay waqtiga loo cayimay xildhibaanada sharafta leh sidaan horey u xusay xukuumaddan waa mid bedesha qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed xukuumadda siyaasadeedu waxay ku salaysnaan doontaa nidaamka dowlad wanaagga isla xisaabtanka hufnaanta iyo sarreynta sharciga xukuumaddu waxay dhiirigelin doontaa wada tashi iyo wada shaqayn joogto ah oo dhex mara madaxda dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo mar walba la eegayo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed howlaha ugu horeeya ee aan mudnaanta siin doono waxaa ka mid ah xasiloonida siyaasadda dhamaystirka dib u heshiisiinta fulinta hiigsiga 2016 adkeynta amniga horumarinta cadaaladda la dagaalanka musuqmaasuqa kobcinta kaabayaasha dhaqaale iyo dakhliga dowladda kordhinta adeega bulshada dardargelinta dowlad wanaagga iyo dib u dhisidda iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda intaasi kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa ay codka u qaadeen xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid waxaana codeeyay 213 xildhibaan gudoomiyaha Jawaari ayaa sheegay in 191 xildhibaan ay ogolaadeen in xukuumaddani ay shaqeyso halka ay ka hor yimaadeen 22 xildhibaan oo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo markii xukuumaddiisu ay heshay codka kalsoonida xildhibaanada baarlamaanka uga mahad celiyay ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay noqon doonto mid ka damqata dhibaatada Soomaalida haysata waxaan jeedaa insha Allah ka xaaqsan aqoonta shaqada kuwa duuban shaqada oo shaqeyn marlabaad iyo masaxan aad iyo aad insha Allah waa loo duubay Maxamed Maxamuud Royal TV Muqdisho